madrasadan cusub ayaa waxaa loogu talagalay in quraanka kariimka ah iyo duruusta islaamka lagu baro caruurta Soomaalida ay ku nool xaafadda Wuusto oo qiyaastii magaalada Cape Town u jirta 100 kiiloomitir isla markaana awoodin inay yimaadaan goobaha kale ay Soomaalidu ku badan tahay sida magaalada Cape Town. goobta furitaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay madax ka kala socotay jaaliyadda Soomaalida, ganacsatada deegaankaasi iyo waalidiinta Soomaalida ay caruurtooda ay dhiganayaan madrasadaasi. waxaana sidoo kale halka joogay madaxda culimada Albayaan oo safar ku tagay deegaanadaasi isla markaana u kurgalayay xaaladaha nolosha iyo midda waxbarasho ee Soomaalida halka ku heestaan. qaar kamid ah caruurta madrasada lagu furay ayaa halka ku soo madhigay quraanka kariimka iyo axaadiis ay ka barteen madrasada taa oo ay aad u riyaaqeen guud ahaan bulshadii ka soo qayb gashay. madax kala duwan ayaa goobta ka hadashay kuwa uu ka sheekeeyay faa'iidada ay bulshada u leedahay in la adkeeyo aasaaska bulshada iyo goobaha lagu barto quraanka kariimka. ay muhiimada weyn ee looga jeedo waxa weeye quraanka in lagu dhaqmo. waxaan ku dhaqmi karnaa kaan macnihiisa aan karnaa marka aqrinana لا سبحانه وتعالى أجري أبال وين خاصين. اقرأوا القرآن قرآن كأقرية النبي وأمر جري عليه الصلاة والسلام قرآن كأقرية يا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 كما قال عليه الصلاة والسلام. روحي هل حرف أقرية وكتاب إلهي كمذا طبعا أجري بالروح في الله. هديمي اللي تجوه حول قتلها وحتى ميسي باتلك هيستلها لها أول waxaad moodaysay inaan baadiyo dugsi quraanka la guuro yaan ahayn oo reer markuu guurayo caruurtan Allah raro markii la degana macallinkii yimaado oo isna meeshii reer waxaantiisii halihiisii iyo wixii xoolo u haystay hadduusan haysanba oo la socdo ayaa la ahaa gaalo iyo wax uu haystana lagama warqalinba muslimka reer guraayo baa la ahaa halkaas diintu ku xifdisnayd oo cid kasta oo timid oo korka timidna ay ka bedeli weyday dadkan inay muslim ahaadaan lillahi alhamd. laakiin hadda ummadii way soo qaxday way soo barakacday balaakiin sada qaarkood qaatay muxuu ahaa wadamo gaala ah la yimid markaas meeshii la rabaa in diinta lagu haysto shaqo badan bay rabtaa shaqadii aabayaashii iyo awoodeed ku yaalay ka badan yaa anaga marka maanta noo taal. marka ay soo dhamaatay kadib ayaa waxaa qaar kamid ah waalidiinta halka joogay ay la hadleen warbaahinta qaranka Soomaaliya oo hay'adii halka booqday kamid ahayd waxaana ay u sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin madrasada cusub ee halka lagu furay maanta. alxamdulillaah rabbil caalamiin meeshan waxaan u dhiganaa xalfada anaga wanaagsaneed ee madrasada ilaahay diinta anaga hanagu hanuuniyo hanagu hadeeyo wadan gaalaan joognaa kuwii walaal oo isjecel oo is xambaarta Allah naga dhigo diinta muslimka uu faraxsanahay inaan dad isku duuban oo isku faraxsanaanaan insha Allah ku qanacsanahay ilaahay waa arrin loo baahan yahay muslimiinta inay kulmaan shucuubta islaamka ay isdhexgalaan wixii markaa ay fikrada iyo ay isdhaafsadaan diinta islaamka in la barto. halka waxaan u mahadcelinaynaa culimada muslimiinta naga soo qayb galay muxaadaradan aad u qiimo badan iyo kaamiristeena weyn ilaahay khayraasi waxaan u hambalyeynaa sida dadaal kale aan u muujinay walaalina asugu garaqsan diinta inaan kor u qaadno. farxadeena xaluudeena caada ugu faraxsanahay magaalada Wuusto ka dhacay macalinkeena sharafta badan ilaahay ciisaasiya dadkii noo imaaday culimadana bulsho fara badan oo Soomaaliyeed dhibaato fara badan baa maartay dadka Soomaaliyeed markay adduunka u kala qaxeen ay qabaan qaar fara badan baad arkaysaan in luqadoodii dib ku tahay diintoodii ay mustahdaf tahay marka alxamdulillah ilaahay wuxuu nagu guuleeyay in xataa luqadii aan wax badan ka qabanay muddadii yareed aan joognay haddana waxaan ku dadaalaynaa in fara badan in aan maartay. waa madrasadii 24aad ee lagu baranayo quraanka kariimka iyo duruusta islaamka oo ay hadda culimada Albayaan ka hirgeliyaan dalkan South Africa. Abdullahi Qorsh telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town wadanka South Africa.